kulan wanaagsan saaxiibada qiimaha badan waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu waaweyn Soomaalida maanta dibadbax xoogan ayaa waxa uu ka dhacay magaalooyin ay kamid yihiin Burco, Laascaanood iyo sidoo kale magaalooyin kale oo ku yaala deegaanada Soomaaliland waxaana dibadbaxyadaasi dhigayay dad careysan oo sheegayay in uu waqtiga ka dhamaaday madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi iyagoo ku dhawaaqayay erayo ay kamid yihiin Muusow ka soo bax filada iyo sidoo kale erayo kale oo ku aadan in waqtigiisu u dhamaaday isla markaana tartan uu galo hadii uu doonayo in mar kale uu soo laabto. Booliiska magaalada Burco ayaa wararku waxay sheegayaan in rasaas ay fureen ay ku dhaawacmeen ilaa iyo dhowr qof kuwaas oo muuqaalo la soo baahiyay ay muujinayeen in dadkaasi loola cararay isbitaalada ku yaala magaaladaasi. dibadbaxayaasha ayaa la arkayay iyagoo dhagxaan isku tuuraya iyaga sidoo kale ciidamo hubeysan oo ka tirsan Soomaaliland kuwaas oo gabi ahaanba doonayay in la joojiyo mudaharaadka xoogaysanaya ee ka soconaya qaar kamid ah deegaanada Soomaaliland. qaar kamid ah shacabka magaalada Burco ayaa sheegay in dibadbaxa ay sii wadi doonaan inta uu xilka ka degayo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Faysal Waraabana waxa uu dhankiisa sheegay in la kaco oo hubka lala soo baxo isla markaana lala dagaalamo sida uu sheegay xukuumadda hadda jirta ay hogaaminayo Muuse Biixi. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in madaxweynaha Soomaaliland uusan diyaar u ahayn in xilka uu si nabad ah ku wareejiyo iyaguna hadii ay yihiin axsaabta mucaaradka aysan taasi ogolaan karin. magaalada Laascaanood sida ay islamida waxa ka soconaya iyana dibadbax aad u balaaran iyadoo wadooyinka inta badan ay jareen bulshada magaaladaasi iyagoo ku gooyay dhagxaan iyo sidoo kale biro. waxa ay sheegayaan dadka ku nool deegaanada Soomaaliland in dibadbaxyada ay sii wadayaan inta uu xilka ka degayo madaxweynaha maamulkaasi Muuse Biixi.
ilaaliya waxaanu leenahay muuse kaana ku ilaalin maayo rabitaanka dadkaa lagu joogaa dadka rabitaankoodaa lagu joogaa allahu akbar taageerayaasha xisbiyada mucaaradkii ha noolaadeen inkasta oo dimuqraadiyada taageeraysa somaliland ha noolaato somaliland doorasho xalaala ayay ku nabadgelaysaa ayay ku badbaadaysaa 13 Noofembar hadday doorashadii madaxtooyadu dhici weydo waynu u sugannahay kursi magaalooyin kale oo ka mid ah Somaliland ayaa laga cabsi qabaa in ay ku sii baahaan dibadbaxyada ballaaran ee ay dhigayaan dadka careysan iyagoo gadaal ay ka taagan yihiin mucaaradka gaar ahaan kuwa axsaabta siyaasadeed ee ka soo horjeeda maamulka Somaliland gaar ahaan dhanka aragtida marka la fiiriyo magaalada Hargeysa ayaa warar hoose oo aan helin waxa ay sheegayaan in laga abaabulayo dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo madaxweynaha Somaliland inkastoo ciidamo taabacsan madaxweyne Muuse Biixi ay wadaan dadaalo ku aadan sidii is hortaag ay u sameyn lahaayeen isla markaana dadka ay u diidi lahaayeen in ay dibadbaxaan guud ahaan wararkii ugu waaweynaa ee Soomaalida oo aan idiin soo baahinaynay halka inooga kooban yahay wixii nagu soo kordhana wararka soo aadan ayaad ku daawan doontaan